بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay diiwaanka. Barnaamijkan insha allahu tacaala oo xalaqaad ah waxaanu ku wareysan doonaa shakhsiyaadka ugu saameynta badan bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka. Ma doonayo inaan faahfaahin dheeraad ah sii galo. Barnaamijka waxaa marti noogu ah haatan sheekh ka mid ah shuyuukhda Soomaalida oo weliba caan ah uguna saameynta badan waa Sheekh Xasan Xuseen Aadan Abu Salmaan. Ku soo dhawow barnaamijka Sheekh. Assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما دhow hay-ad balmadsantay Ee, mudanayaal marweyn barnaamijkan waxaanu ku marti qaadnay Sheekh Xasan si aanu wax badan uga ogaano noloshiisa iyo waxyaabaha uu ku fakerayo iyo sababta uu u noqday shakhsiyad aad iyo aad u saameyn badan. Sheekh, ma doonayo ugu horreyntii inaan ku bilaabo inaad tahay qof argagixisa ah, waayo horey ayaa su-aashaas gaalo iyo muslin ayaa ku weydiiyey, adigana jawaab waafi ayaad ka bixisay inaadan nin noocaas ahayn. Ma doonayo inaan ku weydiiyo inaad tahay qof Al-Shabaab ah, sababtoo ah hore ayaad u sheegtay inaadan xiriir la lahayn qolooyinkaasi. Ma doonayo inaan sidoo kale ka hadlo dagaalka kala dhexeeya adiga iyo qolooyinkan Ictisaamka iyo qolooyinka kale ee dagaalo badan aad soo gashay. Sidoo kale ma doonayo in meelo badan oo noloshaadii ka tirsan ama dagaalo hore aad u gashay inaan furfuro. Laakiin su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay, Sheekh Xasan, dagaaladaas tirada badan dhammaad ma leeyihiin? بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waa su-aal muhiim ah run ahaantii laisweydiin karo meeshana ku jirta dagaaladu hadda aad ka hadashay ma filahay inaad u jeedo dagaal qori laakiin waxaad un ka hadlaysaa baan filayaa dagaal siyaasadeed ama aragti ama fikir ama aragti diineed oon masaa'ilka qaarkood ama dhacdooyinka qaarkood aan ka qabo loolanka diineed ama siyaasadeed ama aragtidaasi aad ku tilmaantay dagaalada ama loolanka dhammaad bay leeyihiin oo dhammaadkoodu waa laba qodob buu noqon karaa in anugu tii alle igu timaado halka aan ku tago wixii aan qabay ama aragti ahaa ama fikir ah aan la tago iyo inta wax naga dhexeeyeen wax isku hayno inaan isku meel iskugu biyo shubanoon isfahanno labada qodob buu ku dhammaan karaa baan isleeyahay Okay, Sheekh, dad badana waxay isweydiinayaan haddii culammada adinkaana baray in liscafiyo in qofka muslimka qofka walaalkiisa aanu 3 maalin macnaha cuqdad u qaadin, adinkana cuqdada in ka dhexaysa oo meel walba ku dagaalamaysaan oo isma aragtaan oo isma salaantaan, marka lima taquuluuna maa laa tafcaluun? بسم الله waa su-aal adag cabdi casiis run ahaantii markaan soo koobo ruux muslima wax u qaba anuu shakhsiyan ma jiro ama aan cugdad ugu maqnahay ama aan xasad iyo urkutaallo iyo urug aan u qaba ma jiro dad muslimiina ama culumaa ama dalabatulcilmi ah laakiin way jiraan oon qaab dhaqankooda iyo aragtidooda diineed iyo fikirkooda aan diidanahay qaabkay wax u xalliyaan ama ay u qaadadhigaan aan ka soo horjeedo kasoo horjeedkaagana meelo badan baan ku caddeeyey waxaan ka qabo qoraallaan ku caddeeyey aragti baan ku tilmaamay xashiraan ku tilmaamay midaasna lama odhan karo waa cuqdad iyo kala dhimasho oo waa aragti diineed mar masaladu hadday noqoto aragti diineed waxaa dhici karta in lagu kala tago oo lagu kala fogaado hadday laakiin tahay adduunya shakhsiyaad iyo magac iyo xandha adduun haddii laysku hayo markaasaan la ogolayn ruuxa muslimka 3 beri ka badan inaad ka maqnaato laakiin hadday baashu ku salaysan tahay aragti diineed ideoloji caqaa'idi mabaadi marka waxay noqon kartaa inaad ruuxii kala tagtaan ilaa qiyaami saaca Arrinta muhiimka ah haddana su-aal oo imaan kartaa waxay tahay, culummadaas qof walba wuxuu ku dheggan yahay mabda'iisa iyo inuu isagu saxsan yahay. Bulsho oo qof walba muriidiin ama dad ku xiran ayuu leeyahay. Marka qofka markuusan diinta si fiican u aqoonna waxaa laga yaabaa inuusan fahamsaneen qaabka iyo dagaalada iyo meeshay salka ku haya. Sidaa la socotana khilaafkan oo caalim kale oo muslima inuu khilaafo wax soo jireen weeye sidii macnaha laga soo bilaabo xilligii asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa xilligan soo socotay. Marka dadkaasi la isugu soo dhaweeyo fikirkooda ama dadka taabiciinta ah oo adinka macnaha atbaacdaydii ah
ma dhici kartaa inaad dhahdaan dadkan waa mas'ala khilaafiya oo shuyuukhda keliya u dhexayso ee macnaha dadkaas kale wax ka dhexeeya ma laha sababtoo acdaa aa jirta hadda oo dhinacyo iyo gurubeysi dhinacyo badan cabdicasiis marka koowaad horta waxaan cudur daaranaynaa bulshaweynta Soomaaliyeed caamada shacabka oo aan isleeyahay waa idinku wareereen idinka wadaadaha ah waxaad isku haysaana ama idinku ayagu ma isan fahmin ama idinku si fiican oo hufan uma idan fahansiinin marka caamadu ama bulshaweyntu Soomaaliyeed aynu hor joogno ragga anaga wadaadaha ah aad baan horta ugu cudur daaranaya shakhsiyan oo waxaan leeyahay ka raalli ahaada hawsha iyada ah marka loo soo dego jawaabtuna waxaa weeye wadaadahaas waxay noqonaysaa wadahadal in la iskugu yimaado oo khilaafku dhowr qaybood buu noqdaa khilaaf laga wada socon karo iyo mid aan laga wada socon karin wixii khilaaf laga wada socon karo intii la iskugu yimaado oo shakhsiyadda iyo nafjeclaysiga iyo tacasubka iyo faara-qabiilka diineed la iska daayo wixii laga wada socon karo danta guud in laga xigo oo la iska raaco laga wada socdo taasi waa soo dhawayna diyaar baan u ahay maasha allah masaa'ilna waa masaa'il ku xidhan mabdi diineed iyo caqaa'idi ah oo aysan dhici karin aad ruux iskugu timaadaan leanna waxaad ka aaminsan tahay mid diinka lagaga baxaayo midna uu ka aaminsan yahay inuu diinta ka tirsan yahay cabdicasiis isuma keeni kartaa laakiin wixii kale ee laga wada socon karo ee khilaafka saayiqa la yidhaahdo waa ila tahay in la iskaga yimaado la iska arko caamaduna hawsha inaana ku weerarina ma ahayn si hoose in looga wada hadlo oo la iska arkay ahayd laakiin nin walba masjidkiisa iyo mimbarkiisa buu ka istaagay intuu doonuu la go'ay ummad badan baa sidaa marka ku dhuntay oo ku baaba'ay taana waa qayb daran intaanan ka gudbin qaybo kale barnaamijkan usii gudbi doona macnaha qaybtan adiga kugu saabsan shakhsiyan iyo dagaalada aad gashay iyo khilaafaadka masaa'isha culammadaas culamo gaar ah oo is leedahay waad ku macnaha waad u adkaysay ama mas'alo gaar ah oo aad ugu fogaatay oo hadda ha layga raalli noqdo aad leedahay ama culamo gaar ah oo ha iga raalli noqdaan aad leedahay ma jiraan ha kuu dhowaadeen ama ha kaa fogaadeen waa su-aal muhiim ah su-aashaydii baad kala baxdaan u maraynayaa taqriiban caamada iyo bulshaweynta Soomaaliyeed loolanka wadaadaha naga dhexeeya aan fahmi karin weeye dadkaan u cudur daaranaysa laakiin culummadu ayagu way ogyihiin waxaan isku hayno markay badankood waxaan isku haynay ay jawaab muqnica ka bixin waayeen ama ay dareemeen gartii in laga leeyahay bay kula galgasheen shacabkii iyo bulshadii oo isku dayan in laga hor keeno oo laygu diro waxaan ahayn laga sheego wixii doona la sheego dadaan ku adkeeyey si khaasa ma jira laakiin barihii u dambeysay labada kooxood ururka ixtisaam loo yaqaan iyo nimankii ka horreeyay suufiyada la odhan jiray dariiqooyinka labada waxaan isleeyahay mowqif adag baan ka qaatay oo markaan arkay inuu diin yahay ilaa aminkanna waa isla saxanahay oo umanahaygii baa qoorta igu jira ilaa aan ku qancay inaan hawshaa ku khaldanahayna waxay ila tahay inaan ku taagnaanayo ku taagnaanay leanno dadkaas macnaha marar badan aan akhriyey dagaalada wax badan aan daawaday macnaha inkaar iyo af iyo walaaltinimo iyo asmo wax waa lagaaga tari waaya marka in hadda wixii lasoo gabagabeeyena way habboon tahay waxaan rajaynaynaa insha allah ka dhegeystayaal ama daawadayaal ama shacab ahaan in ilaahay uu soo afjaro dagaalkaas anaga saasaan rajaynaynaa amiin khayr allah sabta insha allah saasaan rajaynaa barakallahu fiik tusaale socotid sheekh xasaan dunida caalamka islaamka hadda meel khatar ayuu marayaa tusaale socotid 2 sano muddo haatan laga joogo waxaa bilowday wax loo yaqaano alrabiicu alcarabi ama guga carabta wuxuu ka bilowday tunisia masar libiya yemen suuriya hadda dhibaatada ka jirta waa arkaysaa marka islaamiyuuna ku bilowda qaab islaami ah waxyaabaha hadda waa aragtay meelihii ay qabsadeen rabiicaas uu ka dhacay ama kacdoonnadaas ay ka dhaceen dad islaamiyiin ayaa qabsaday maanta islaamiyiinta 1 sano kadib waa lagu gadooday waxaana dadka istuseen inuu yahay waxaa loo yaqaanay alislaamu siyaasi la dhihi jiray fikraddii haatan way gadmi weyse waxaana dadka loo arkay inuu macnaha meeshii dadkan faashiliin waa la dhihi lahaa qofku wuu ku fashilmi karaa wuuna hagaajin karaa maamulka laakiin islaamkiya qoorta loo saaro waxaa la dhahay dadkii islaamiyiinta waa faashiliin wax ay kala yihiin mala marka aragtidaada guud rabiicul carabi ama kacdoonadan carabta ka socda iyo qaabka hadda kusoo gabagabowday iyo nacaybka loo sii qaaday islaamka iyo islaamiyiinta ina wax yar nooga hadashaan jeclaan su-aashaasi waa su-aal guda ballaadhan cabdicasiis marka koobaad ashucuub alcarabiya ee ka gadooday ka kacday dulmigii iyo diktaatornimadii kalitalisnimadii xadgudubkii eexadii cadaalad darradii lagu hayay tunis libiya masar
suuriya yaman kulli horta waan qadarinayaa oo asbaab jirta ayay ahayd oo waaqic ah hase ahaatee qaabkay ku dhammaatay iyo sidii loo agaasimay midhihii ka soo baxay kuma qanacsani haddii shacabki intuu gadooday dulmiga iska riixay waxaa la doonayey in ummaddan diin bay leedahay dhaqan bay cabdicasiis leedahay dhaqankeedii iyo diinteedii lagu soo dabaalo oo lagu hogaamiyo oo lagu hago midhihii ka soo baxay arabiic alcarabi ama dawaaqiiddii la tuuray iyo dikaataradii la tuuray waxaa ka faa'iidaystay dad mukhlisiin ahaa iyo kuwa aan dana khaasaba lahaas reer galbeedkuna marka faragelin badda ayay ku sameeyeen masaarkeedii iyo geediscarabi oo dhan baa la leexiyey waxaana kaararka lagaga gubay oo lagu ceebay oo lagu fashilay islaamiyiintii soo galay ayaguna khibrad dheeraada ma aysan lahayn badankood marka reer masar laga soo reebo oo lagu tumayay inay 82 sano khibrad leeyihiin ha laga soo reebo khibrad ku filana ma aysan yeelanin xaaladii loolankii taagnaana qaabkay u agaasimi lahayeen ma aysan ku guulaysanin taasaa marka keentay in nac u yimaad ayagoo qaab wanaagsan u maamuli waayey reer galbeedkii reer yuruba aad qadiyadda ugu shiday dowladaha dariska ah ee ka taliyaan boqorradu sida imaaraadka qatar sacuudiga baxrayn kuwait oo aan rabin aan rabin in la helo nidaam ku dhisan shuuro iyo ikhtiyaar xor ah oo ay ummaddu doorato ciddii xukumi lahayd arrimahaas oo dhan oo isbiirsadaa keenay in walaadi marka loo arko shayaadiin inay yihiin danaysanay marka haatan waxaa muuqato islaamiyiinta in loo arkay dad oo wax mataryaal ah nidaam alislaamu siyaasi waxa la dhaho inuu fashilmay ayaa loo arkay dunida carabta haatan nacayb aadna waa loo qaaday haatan waxa ka socda suuriya waad arkaysaa afgembigii ka dhacay mursi lagu riday masar waa arkaysaa meel walba hadda islaamu siyaasi wuu fashilmay marka ma la dhihi karaa waxa runtana waxay tahay waxa fashilmay islaamka maahana waa dadkii maamulka uu ka qaldama marka ma la dhihi karaa tan waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa in dadka ay ka aamin baxaan in dadka islaamiyiinta ay han u yeeshaan berita inay maamulaan ama carabta ha ahaato ama dalalka kaloo islaamka ha ahaato qof micnaha asalkiisa u yahay islaami ama akhwaan ha ahaado ama salaf ha ahaado ama suufi wuxuu doona ha ahaado qof islaami ah dhar islaami ah gasha inuu ummadda soo istaago iska gado oo dhaho micnaha ha laysku xukumo diinta islaamka inay meesha ka baxday ma u malaynaysaa runaantii qadiyaddaasi wax badan baa ka jira marka dhab loo hadlo kalsoonidii badnayd ee shucuubta ay ku qabeen wadaadaha dhaawac badan baa gaaray nin ku fashilmay ganacsi uu bilaabay iyo ammaanad ummad ka qaaday nin ku fashilmay dagaal uu bilaabay oo halgan ahaa dhibaatooyin nin ku fashilmay siyaasad uu galay qaabku u adeegay ama u maamulay marka kalsooni bax badan iyo kalsooni darro fara badan shucuubtu way ku jirtaa wayna dareemayaan kalsooni darradaas marka qaybna lug baanu ku leenahay annaga wadaadaha qaybna waa gaalada iyo awoodda adduunka maanta ka jirta ee miidiyaha iyo iclaamkaba xukunta buunbuunin badan iyo ku dardarid fara badan iyo ummaddoo la jiheeyey iyo khalad xaggana ka yimid labadaasaa isbiirsaday waxaa sii xoojiye u kabageliyey bulshada muslimiinta iyo dadweynaha oon bislayn inay wax walba qiimeeyaan oo ay saaraan booskuu lahaa oo khaladkayga u qiyaasa intuu dhan yahay wax ka sheegaya ma jiraa mise ma jiro islaamiyiintu waxa la saaraya ma dhabba shucuubtuna uma bisla inay wax miisaamaa oo wacyigooda siyaasigu waa liitaa kooda fikrigaa liitaa aqoontooda duniyad baa iska yar khaladaadna xaggooda hadduu ka yimid gaaladuna sidii rabto way u kabagelisay marka waxaa weeyaan saddexdaa cudur oo isku tagay ayaanu ku fashilannay ama keentay kalsooni baxa fara badan ee adduunka maanta ka jira ma dhici kartaa marka kalsoonidii in lagu soo celiyo heerkeedii way dhici kartaa haddaanu dib ugu xisaabtanno oo wixii naga khaldamay si hufan oo daacadnimo ah aan nooga xisaabtanno kadibna aanu saxno laakiin waxa nugu adag wadaaddu waxaa weeye badankood ku adag khalad uu shalay galay inuu intuu ka soo laabto haddana ka cuyurdaarto ummadda uu cuyurdaar u celiyo taas way adag tahay oo weliba khaasatan qoyskan soomaalida dhaqan ooma ah alcaalam alcarabina waa wax badan nama dhaamaa haddii tajribadii iyo khaladaadka dhacay intii dib loo daraaseeyo lajna hora loo saaro taqasil xaqaa'iq la ogaado kadibna ummaddii loo cuyurdaarto khaladkan la saxo waa la soo celin karaa kalsoonidii inkastoo soomaalidu tirahdo lafsay u kabanto u jabtay uma kabanto oo kal dareen galay kalsoonimo gashana waa la yidhahdaa marka shacabku waa dideen laakiin soo dabaalidoodu muddo badan bay qaadan doontaa waa haddii laakiin daacadnimo hufnaan la helo dib wax loo soo celin karaa sheekh arrinta kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay marka la dhaho alislaamu siyaasi ama islaamka
hadda meelo badan oo adduunka ah ayuu magacaasi soo shaac baxay oo ah dadka Islaamiyiinta inay wax maamuli karaan. Marka ma is leedahay ii sheeg magacaasi wuu gadmay oo dadkii u qalmay ayaa haatan haya ma is leedahay? Ka ururo laga hadlo iyo shakhsiyaad marka laga hadlo dadka hadda horboodaya al-islaamu siyaasi fil caalam guud ahaan marka laga dhaho. marka koobaad Cabdicasiis nin walba oo muslima oo isku dayay inuu wax qabto ama wax wanaajiyo dadaalka dheeraadku bixiyo waa uga mahadnaqaynaa. Wixii uu saxayna waa ku mahadsan yahay. Wixii uu khalad ku galayna beri baan ka nahay. Taasi waa qaacido guud oo aynu ka duurayno. magacan al-islaamu siyaasi inuu soo shaacbaxo oo dadweynaha dhagooda ku bato caalamkana uu soo galo waan taageersanahay si guud ahaaneed marka kor laga fiiriyo. laakiin qaabka loo cardinhayo loo bandhigayo boqolkiiba boqol ma taageersana waana ka soo horjeedaa. islaama siyaasi siyaasaddu asalka annagu markaan manduur islaamiga ka eegna ama aragti diineed waa in dunida lagu maamulo diinta ilaahay. dunida allah iskale subxaana wa tacaala uunka asagaa abuuray dhul iyo cirba asagaa iskale marka in diinkiisa lagu maamulo ayaa anagu siyaasadda u naqaana qawaaciddii siyaasada islaamiyaha in marka ku dhaqmo ayaa islaami siyaasi ah. Okay, su-aasha ku xigta waxay tahay haatan dunida muslimka waxaa lagu qiyaasaa 1.6 bilyan oo qof. sidaa la socotay dunida waxaa ku nool 6 bilyan marka 23 ka mid ah boqolkiiba waa dad oo muslimiin ah. waa diinta labaad ee dunida ugu ballaaran. islaamka sidaas u samaysan saa la socotay 500 oo milyan oo ka mid ah waa Indonesia keliya. carabtoo dhan marka la isku daro waxaa ka badan inta ku nool Indonesia ama inta ku nool Hindiya iyo Pakistan. marka dunida carabta 23 dal iyo waxaa la isku daro marka intaasoo dhan dowlada ayaa ka jiro. dowladahaas dowlad islaami ah dhihi karta ma jiraan. aragtideeda shakhsiga hadda ka hor in badan baan ka hadlay dowladda aan oran karo waa dowlad islaamiya xagga xukunka iyo nidaamka marka laga hadlayo ma jira laakiin bulshooyinka wadanka iyo dhulka ku nool dad muslimiin ah agtayda dunida islaamka waxa sheegto dhan waa dad muslimiin agtayda laakiin markaynu ka hadlayna dawaa'ir al-xukuumiyya ama taliska iyo maamulada ummadda ka taliya dunida aad sheegtay aad u ballaaran dowlad la oran karo waa dowlad islaamiya oo ku dhaqmaysa sharciga ilaahay anigu adduunka kuma wada hadda ma jirto. Okay, haatan markaan ka hadalno dunida islaamka iyo qaabku u samaysan yahay ma jirtaa dalal saxwada ay ku badan tahay way jiraan. dal walbana wuxuu sheegtaa inuu kitaabka ilaahay uu ku dhaqo dastuurkana waxaa ugu qoran tashriica inuu ka imaado kitaabka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka dowladaas sida caalamku u register garaysan waxa weeyaan dowla islaamiya. marka miyaysan taas ayadan ahayn oo ummaddaas maadaama ummaddii meesha ku dhaqneed ee islaami tahay qofkii xaakimkaana uu leeyahay wax ka soo horjeeda kitaabka ilaahay anigu kuma dhaqayo maxaa marka ku jaban dadkaas? su-aashaas waa su'aal dhib badan weeye fahamkeeduna wuxuu u baahan yahay sharx dheeraad ah laakiin markaan khulaaseeyo waxa weeye ruux way isaga saalantahay Cabdicasiisow inuu wax sheegto waxna sameeyo wax ka duwanna sameeyo inaan u idhaahdo run baan sheegaa xaggana aan been sheego way dhici kartaa inaan idhaahdo daacad baan ku socdaa oo daacad baan aho ilaahay baan caabudaa xaggana aan caasiyana way badan tahay dadku waxay sheeganayaan in badan oo ka mid ah iyo waxa waaqac yaalla kala duwan dad hadda muslimiin sheegto hadda ka hor in badan aan ka hadlay baa jiro suufiyaan la yidhaah inay muslimiin ilaahayna caabudaan bay sheegta laakiin dhabta la ogaya waxaa weeye adigu aan kaba qabto awliye iyo abootooyin iyo ahlu qaabuur bay baryaan ninka xaakimka dastuurka qoobku ku qoray oo masdara tashriici ama ra'iisi waxaa weeye al-islaam iyo wixii la halmaan waa xibr calaa waraq macnaha wax lagu dhaqmo waaqac yaalla ma dasaatiir iyo bainal code iyo xeer iyo qawaaniin laga soo qaato faransiis iyo ingiriiska iyo hollandiis iyo maraykan wax noocaas alqanuun almadani baa adduunka ka shaqeeya oo lagu dhaqmaa laakiin islaamnimada waa la sheegtaa markaynu dadka aan qiimaynaynana waxaan ku qiimaynaa xaaladda ruuxu ku nool yahay iyo waaqiciisa ku qiimayn mayno wuxuu sheeganay. sheekh waxaa kaloo jirto hadda dunida islaamka markii dunida caalamul islaami markuu ka dhacay saxwaakani waxaan dadkii ay diinta jeclaadeen xataa ururo badan ay jirto oo caalamul islaami oo aanan ka dhicin dhibaato aysan ka dhicin balse xarakaad islaamiya sida Soomaaliya oo kale hadda damul jadiidi oo la sheegayo in macnaha dadkii ay horkacayaan marka dad nooc maxaa kula talileed shakhsiyaadka hadda haddii meesha jooga oo taliska haya oo diinta islaamkana maanta ayay gacantooda ku jirtaa inay maamulaan iyo inaysan ku maamulaan
shakhsiyaadkaasoo kale wax oo aad u jeedi lahayd ma jiraa? كلها waxaa la yidhi laa ra'ya liman laa yutaac Sax. ra'yi ma laya tale iyo xikmad iyo murti ruuxaan la adeecaynin laakiin nin walba oo xaqdoona ama wanaag ummadda Soomaaliyeed la jecel waxaa wanaagsan wixii wanaag u arkay inuu ummadda taarto run ahaantii Soomaalidu Sheekh Cabdicasiis way iska wareersan tahay wareer soo bilowda dhowr boqol oo sano baynu ku jiraa laga soo bilaabo maalinkuu sayidku sayida maxamed cabdalle xasan raxmatullaahi tacaala caleyh 1897 maalinkuu iclaamiyey in 3 qodob buu Soomaalida u iclaamiyey kow inay midoodo isku timaado labo in ciidamaha shisheeye waddanka soo galay Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga xabashidii waddanka laga saaro saddex kitaabka Ilaahay ku dhaqmaan halgankii dheeraa ee 25 sano sayidku uu waday asal loo taariikhda Soomaalidaba sidaad ka warqabtaan saddexda qodob buu ku salaystay saddexdii wax laga dhaqan geliyay ilaa yawmina hada ma jiro wuxuu u dagaalamayay in ciidamaha shisheeye dalkeena boobaya hantidiisa iyo khayraadkiisa waddanka laga saaro weli waa ku jiraa. weli waa ku jiraa wuxuu u dagaalamayay kitaabka Ilaahay iyo ummadda dhaqankeeda diinkeeda in lagu dhaqmo weli lama hayo dastuur iyo xeer baan weli isku maamulaa Soomaali inay midowdo oo mid noqoto Soomaaliya oo dhan. Soomaaliya oo dhan isku timaado min Jabuuti laga bilaabay ilaa Ras Casayr la isu keeno u dagaalamayay hal qodob oo ka hirgelay ma jiro dhammaan wax si kala taga iyo wax ka daraba mooyeen xal oo ma hayn marka waxay la tahay dadka siyaasiyiinta ama indheer garadka ama ummadda u danqanay qodobihii sayidku ka hadlay inay dhaqan galaan oo hirgelin isku dayaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo arrin mar walba ugu soo laalaabata saa la socotid sayidka wuxuu ahaa nin suufi ah nin wuxuu ahaa saalix low saalixiye marka salafka ka sheekeynayaana ninka way ammaanaan macnaha wanaaggii uu qabtay salafiinta ha teeda kale markaad suufiyada ka hadlaysaan dhulka la jartaan marka miyaysan ahayn arrin isqaadanayn su'aal muhiim ah yani sayidku nin walba qaab buu iyo u taageersan yahay waa ninka muxtaram ah nin culimo ah oo xaalim ah oo halgamay bay ummadda Soomaaliyeed badanka horta u aragtaa waana sidoo xaqiiqatan u ahaa weeye laakiin annagu suufiyada ka magac ahaan lama dagaalamayno ama uma haysanno macnaha mabda suufiya mabda iyo waxay aaminsan yihiin ama ku dhaqmaan baan ku haysanaa ninku inuu zaahid noqdo ama caabid noqdo ama ilaahay u go'o ma diidaneyn laakiin manhajkan ay ku dhaqmaayaan ilaahay khayrkii la weynayaa ama addoommo la baryaa ama culummo la tuuga ah oo xaqu ilaahay lahaa aadama la siiyo ama makhluuq la siiyaan kula dagaalanaan ku diidannahay sayidku sax weeye inuu dariiqada saalixyada ka tirsana waxaa la isweydiiyaa sayidku makaqitaa siyaasu ka dhigan hayay saalixyada oo sheekh maxamed saalix rashiidkii maka fadhiyey oo sheekhiisi ahaa kolka maka ayuu markaa uun ku xurmaynayay mise ka mabda ahaan buu aaminsanaa sulugan saalixiga ah annagu haddaan salafiyannahay ama si kala qadqaadne laba qodob baan sayidka aad ugu taageersanayn halganka uu waddanka la yimid iyo ka hortagu ka hortagay gaaladii iyo mustacmiriintii gumaystayaashii oo u ahaa nin gob ah oo diiday in la gumaysto taa waa ku taageersannahay waxaan kaloo ku taageersannahay nacaybka uu gaalada necbaa labadaa qodob baan ku taageersannahay iyo midaynta isku dayay juhuuddu la yimid oo saddexda qodob ku salaysnayd mabda'iisana sheekh waxaa sii qaatay marka dariiqada saalixyada markaa way qaantaa kuwan kale duruqdu isku mid ma aha iyagoo hadda wixii dariiqo ah bay isdhaamaan saalixyadu waxaa lagu yaqaanaa way ka fudud yihiin xagga bidacda ku jira duruqda kale way dhaamaan teeda kale adiga macnaha maalin kale u baahan tahay sababtoo adiga xitaa suufiya soo eheysay laftarkaygu suufiyan soo maro waqti dheer xalqa kale u baahan tahay sayidku waxaan ku taageersannahay midaynta ummaddu isku dayay halkii ka dheeraay uu galay iyo diinka islaamka oo aad ugu dhiidhiyi jiray iyo gaala nacaybka qodobahaasaan ku taageersannahay markaan suufiya dhulka la jaraynana waxay yihiin baan ku gelaynaa sayidkuna waxaa baan ku qiimaynay taasi waxay tusaysaa inaan daacad ka nahay qiimaynta aadamaha oo nin walba wuxuu yahay aan ku qiimayno markaan kasoo gudubno haatan waxaa geeriyooday saa la socotay ra'iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliya soo maray Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ilaah u naxariisto wuxuuna ahaa SYL waxaa jirta mar aan la kulmay Cali Barduura oo ahaa raggii 13kii aasaasay SYL magaalada Qoryoole aan ugu tagay waxyaabaha uu asagana taageersanaa waxaa ka mid ah oo ama wuxuu ugu yiri aadami inaan ka tegayna u malaynaya balse daayeeraan ka dar macnaha markuu arkay qabyaaladda
iyo sida dhibaatada dalka ka jirtay iyo saa la socotay gumaysiga iyo wixii oo dhan marka misleedahay legacy ama taariikhdii uu ka tageen sayidka iyo raggaasi rag kala sii qaaday oo SYL laakiin haatan ma jirto macnaha ay sheeg nidaamkii iyo wuu isbedelay run ahaantii ruux dhintay inaan canaanto ma doonayo laakiin nidaamkii bilowday 1960 xilligaana waan ku sheegi jiray istiqlaalka ilaa yowmina haada SYL aan ka hadlaa waan fahansanahay cabdisaaq waagi dambe haddee mas-uul weyn buu ahaa soomaaliya jagooyin badan buu ka soo maray lafdhabarti siyaasadda soomaaliyeed ayuu ahaa waad la socotaa marka dadaal dheeraad dhalinyarada la yimaadeen gumaystii bay ka hortageen soomaali bay kixiyeen abaabul badan bay la yimaadeen laakiin midhahoodii qaabkii loo agaasimay ama ayagoo u maamuleen baan diidanahay maadaamay dad soomaaliyeed ahaayeen oo diinta islaamka u nasab sheegta ummadduna dhaqan iyo diin ay lahay waxay ahayd inay dastuur islaami ah ku dhaqaaqa ama diinkooda ku dhaqaa dastuur cabdicasiis waxaa loo dejiyaa ummadda kala jirta yahuudiyad nasraniyad muslimiin shiico kala socota ayaa loo sameeyaa sharci mideeyo oo isu keeno danahoodii ay ku adeegtaa kala hagana laakiin ummaddu markay isku diin tahay dastuurka ilaahay baan badheen maxaa loogu baahanayaa in loo qoro dastuur kale qodobaha waa qodobahan ku diidanahay dadaalka dheeraadka ay bixiyeen iyo qaabkay u maamuleen nin walba oo siyaasi ahna waxaa wanaagsan ummadda inuusan wax cusub u keenin wixii kitaabkii asalkeeda u cadow sheekh markaan ka hadlayno waxa weeyaan waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika humul kaafiruun markaan dhahayna aayadahaas aan ka hadlayno saddexda ah oo looga hadlay dadkan ilaahay dartii aan isku xukume marka kitaabka ilaahay aan isku xukume ma waxaa soo gelaya dhammaan hadda dowladaha islaamka sheegto dhan su-aashii horeen ka soo joognay baad qayb dib u soo celisay adoo qaab kale u dhigay masalada xukmiga waxaa horta muhiim cabdicasiisow laba qodob in la kala fahmo qodobka koowaad waxaa weeye annagu haddaan salafiyiina ama asiyaas sharciyaba dadka ka hadla ama culummada diinta aqoonta dheeraadka u leh ma diidanin aadamuhu inay doortaan dadkii maamuli lahaa muslimiintu inay doortaan si xor ah oo madax bannaan ay doortaan axadkii iyo xukuumaddii maamuli lahay laakiin qodobkan ku dheganahay waxaa weeye doorasho kama furra iyo khiyaar ummadda wixii lagu dhaqi lahaa waa dooran kartaa cabdicasiis waa dooran kartaa xasaan waxaad dooran kartaa xuseen ninkaad doonto adigu meesha keen laakiin ninkaa xukuumadda waxay sharci ku noqonaysaa oo ummaddu ay dowlad u noqonaya maamul marka kitaabka ilaahay lagu xukumayo marka sharciyadaadu iyo dowladnimadkaada waxaad ka qaadanaysaa kitaabka ilaahay ku dhaqanka kitaabkaad ku dhaqanto dariiqaa doonta aad ku timaada dad badanaa waxay ku doodaan marka ku dhaqanka diinta islaamka laga hadlayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilligii uu madiine yimid ma dhihin kitaabka keliya aan ku xukumaya dadka wuxuu sameeyey wasiiqatul madiina saa la socotid marka waxay leeyihiin dunida haatan waxaa ku nool dad diimo kala duwan ama dhaqamo kala duwan macquul maaha marka kitaabka ilaahay keliya sidaa la socota xataa fiqiga waa soo akhrisatay xataa shareeca kala duwan masdar shareeca wuu ka macnaha masdar meelo badana laga keeni kartay marka taa maxaa ku diidantaa waa su-aal muhiim ah su-aashii haddaa aan kuu sheegay bay qayb ka mid a tahay cabdicasiisow wasiiqatulmadiina loo yaqaano ama tacaahudkaas madiinabi uu sameeyey waa meesha la yidhahdo wuxuu ahaa awalu dastuur fil ardi yimaada dastuurka u horreeya adduunka yimaada nabigu markuu madiina yimid wuxuu u yimid ummado kala duwan dad ansaaro asaga nabiga taageersan oo rumeeyo muslimiinad qabaa'il carabeed oo wathaniyiin oo mushrikiin weli aan diinka soo gelin yuhuud deganayd marka kala duwan buu nabigu u yimid umamkaas islaamkuna wuxuu laazimaa oo uu qabtaa oo lagu maamula ruuxa aaminsan ee ashahaaday diinka soo gala idan inaan diinkiiba aaminsanin xukunkiisi ma laazimin kartid haddaadan awoodda adugu iyo dowladda u markaadan lahayn nabigu marka wuxuu qoray wasiiqa ama dastuur mideeya ummaddii madiina deganay waxay qawaasinta mushtarag ee wixii ka dhexeeyana u adeega dantoodii guud inay madiinada difaacdaan inay isgarabsadaan wixii go'aanay u dambeeyana nabiga la weydiiyey marka taa lama barbardhigi karo dastuurka maanta lama barbardhigi karo taasi waxaa weeye dad muslimiin oo madax bannaan oo diinka soo galay waa in kitaabkooda ay ku dhaqmaan laakiin markaynu tagno meel ay gaal iyo islaam ku nool yihiin ninku awood badanna uusan jirin marka ayada waxaa dhici karta inaan u samayno wasiiq lagu midaysan yahay islaamkuna markaa lagu dhaqo intii muslimiina ilaan awood kale oo taa ka badan aan ka helayn sheekh waxaan doonayaa inaan qodobkaa ka gudubno sidaa la socotid dad badana waxay isweydiinayaan sheekh xasaan khayr allah siiyo mar walba wuxuu ku fariistaa kursil mucaarad wuxuu leeyahay islaamka ha lagu maamulo ha la qabsado kitaabka ilaahay waxaa la sameeya dowladdan way xun tahay tan way wanaagsan tahay shakhsigan wuu xun yahay shakhsigan marka caawa waxaan rabnaa
inaan kuraasta bedelno inaa kursul mas-uul adigu ku fadhiisato mucaaradnimada halkaas ka soo dhig haatan dalkan saa la socotid dad waxaa ku nool muslimiin ah aan joogno ee dalkan Kenya xisbiga talada haya qofka hogaamiyaha u ah ee baarlamaanka waa Soomaali ruux Soomaaliyeed waa taqaanaa oo malaynaa Farax igu aan jiray waa hadda ka dhacay okay haddii marka aad shakhsiyaadkaas ka mid tahay baarlamaanka ku jiro mooshinka ugu horeeya oo aad hordhigi karto baarlamaanka dalkani Kenya waa maxay waa su'aal muhiim oo siyaasi ah waxay u baahan tahay waqti dheer laakiin khulaasada wixii hadda idaacad geli kara waxaa weeye anugu mooshin ma qaadin mana horgeeyeen baarlamaanka Kenya oo dadka islaamiyiinta dadka muslimiinta waxaan dadka muslimiinta ee waddanka Kenya ku nool yaan midayn lahaa marka koobaad intaadan mooshin geyna ayagaan midayn lahaa iyadaan isku keeni lahaa laqaan ay ummad muslimada yihiin isku diin yihiin isku dhaqan yihiin ku nool yihiin balad looga awood badan yahay oo ay minority ama aqaliya ka yihiin ayagaan midayn lahaa ayaga marka la mideeyo culimada muslimiintu waxay leeyihiin waxaa waajiba in loo magacaabo marka la mideeyo aqaliyada la mideeyo madaxweyne ama ra'iis ayaga matala loo sameeyo qaadi ayaga matala qaadigaas iyo qaadiga ummadda ku maamulaya muslimiinta wixii islaamka raba oo sida sharciga islaamka uu qabo jumlatan wa tafsiila min al-alif ila al-ya diinta islaamka ku maamulaya marka waxa qabta madaxweynahaas lookalka inta muslimiinta khuseeyana samciya taacu yeelanaya wixii dhibaata ama dhib ama baahidana ayaga u gudbinaya madaxweynaha Kenya ama dalka dhanba haysta ama marka muslim ha noqdo ama gaalba ha noqdo ama cid doona ha noqdo marka horta in la mideeyo ummadda islaamka ee degan Soomaalida Carabta sawaaxiliga muslimiinta hindida muslimiinta inay madaxweyne yeeshaan qaadina yeeshaan kadibna ay yeeshaan qaadigaasi madaxweyne dad la shaqeeyo kalkaaliya oo caawiya kuwan ay u gudbiyaan dantooda iyo dhibkooda dawladda guud marka dawladda guud in baarlamaanka la galo oo shakhsiyaad lagu yeesho sidoo kale waad qabtaa ma qabo in laga baxa qabtaa in laga baxo in la galaynayn banaanayn ba qabo diin la'aan ay tahay waxay soo kordhin aysan jirin waxay uun sii kordhin qaybsankii burburkii ummadda diintooda laga sii fogaado midnimadii oo kala tagta hadda waxaad arkaysaa north eastern markuu dhib ka dhaco ama muslimiin lagu xadgudbo reer koostugu waa ka xanuunsanaan way ka mudaharaadaan way nala saftaa ayagu laakiin hadduu dhib gaaro Soomaalidu hawshaas kama dantato muslimiinta horta waa la baaba'shay ayagu horta in la isu keeno la mideeyo madaxweyne loo sameeyo talis ayaga matala qaadi diintooda ku xukuma kadibna gudbiya dhibaatooyinka iyo danahooda gudbiya dawladda sare taas waan gartay aan ka tagno Kenya aadno dankaasi Soomaaliya marhab haatan waxaa madaxweyne ka noqday Xasan Sheekh Maxamuud marhab sala socotidna meeshii markuu imaaday wuxuu u imaaday niman madow ah oo amisom la dhaho oo dalka ka talinaya wuxuu u imaaday shakhsiyaad kale oo Soomaali ah oo fikirkiisa diidan oo nidaam islaami ah oo doonaya inay ku xukumaan haddii uu doonayo xitaa inuu nidaam islaami ah ama fursad uu siiyo waa qof dhinacyada dhan laga xiran yahay haddii aad ahaaleed maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh tilaabooyinka aad qaadi lahayd waa maxay si ay wixii u noqdaan wax dadkoo dhan ay ku midaysan yihiin waa su'aal aad iyo aad u khatar ah duruuftuna aysan ii saamaxaynin inaan hoos u dago laakiin haldoorka unbaan ka abaaraya haddii meesha aan ku fadhiisto waxaan uun yeeli lahaa ama nin lamida uu ku fadhiisto waxaan uun yeeli lahaa xagashii ay ka soo baxday 100 sano ka hor bay Soomaaliya dib ugu noqotay Cabdicasiis xagasha in laga soo saaraan isku day lahaa oo ah kow in Soomaalida la mideeyo Soomaalidu hadda waxaa loo wagar waxay ahayd 5 gees bay ahayd 2 gees way naga maqnaan horaanba waa la haystay oo kii gubaysto u raacay laba dalka raacay 3 baynu ahayn mid gooni baa loo geeyay kii Djibouti loo geeyay koonfuriya waqooyi baa isu yimid oo dawladda Soomaaliya ay ka asaasmay intiba hadda waxaa loo sii qaybinayaa 20 gobol taa macnaheedu waxaa weeye dib dambe inaan loo helin qaran Soomaaliyeed oo jira ama awood leh oo markaa xaqiisa dalba waxna iska difaaca kow qodobka koobaad waxaan samayn lahaa inaan isku dayo Soomaalida inaan mideeyo isu yimaada culummadeeda cuqaasheeda ildargaradkeeda siyaasiyiinteeda aan isu keeni lahaa midnimadan horta ka dhaadhicin lahaa waan isu keeni lahaa bacdaha waxaan isku dayi lahaa in kitaabka ilaahay waxaan ahay aan lagu xukumin wax walba la tuuro qaanuunkii Talyaaniga lagu tagay kii Faransiiska kii Ingiriiska kii annagu aan qorannay 60maadkii ilaa 70 dhowrkii wuxuu dhanba la qumumada diin bay leedahay culummadeedii iyo diinteedaba loo dayn lahaa qodobka saddexaadna shisheeyaha dalka soo dalay danaha badan kale baanu saari lahaa
dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee diidan siyaasadka dalka ka socda ee ama dagaalama aan dagaalamin ee la fogeeyana waa soo dhaweyn lahaa. Qodobbada afartan marka samayn lahaa. Karala ku siiyo haddii aad ahaa lahayd wasiirka awqaafta waxaa loo doortay nina saaxiibana Faarax Sheekh Cabdiqaasi Jamiican. marka haddii ahaa lahayd wasiirka awqaafta ee Soomaaliya waa maxay tallaabooyinka waa meesha ay ka imaan karto in diinta islaamka la isku xasuufiyo maxaa kula tali lahayd Faarax Sheekh Cabdiqaasi Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxaan kula talin lahaa kow inuu ka baxo maamulka uu ku jiro. لأنه jidid ma ka wada maya dowladda dhan ee Xasan Sheekh Maxamed madaxda ka yahay ee qaabkan hadda u dhisan burburkun bay Cabdi Casiis sii kordhin maayo waxay keenayso ma jiro. Shariif baa ka horreeyey, Cabdullaahi Yuusuf baa ka horreeyey, waxaa ka sii horreeyey muxuunku dhaday Cabdiqaasim Salaad baa ka sii horreeyey. Inta tabarteennu ay sidan tahay maamul noocaasoo la qabtaayo wuxuu yahay dahaar danaha gumaystaha ayuu dahaar u yahay. Dan Soomaaliyeedna ma wado. Laakiin hadday ka tagi weydo ummadda wuxuu u qaban karee wanaag ha u qabto wixii diin la'aan iyo gaalnimaan ha kala diro. saale socodsid Professor Jawaari wuxuu fadhiyaa baarlamaanka Soomaaliya haddii aad ahaa lahayd Professor Jawaari booskiis ku fadhi lahayd maanta baarlamaanka qodobada aad hordhigi lahayd ma ku jiraa in diinta islaamka ay noqoto diinta qaab noocee ayaa kula tali lahayd Cabdi Casiis waa su'aal wanaagsan oo muhiima baarlamaan hawshan ma horgeeyeen laanno xalay dabkii lagu taa dambeskisa laga gudaa waxaan shalay soo maray inaan dib ugu noqonana ma wanaagsano 1961 markaynu xerownay hal sano kadib baasha Maxamed Ciise nin la oran jiray Cismaan Maxamuud ah oo nin qiimo badan oo caalim ah ayaa wuxuu horgeeyay baarlamaankii Soomaaliya 124 xubnood ka koobnaa iyo wuxuu horgeeyay oo ku qancay ra'iisul baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka xilligaa jiray iyo wuxuu ku qanciyay in mooshin la horgeeyo baarlamaanka in sharciga islaamka lagu maamulo oo kitaabka manhajka iyo fiqiga lagu dhaqmo qaanuunkan looga tagaa tagayaan la xoor oo wuxuu ku yiri suuragal ma in gumaystina inaga baxo xaqana aynu ku dhaqanno sharcigiisii wuxuu soo ka tagay marka diintana u noqon baarlamaanka waa ogay qadiyada ayada markii la horgeeyay baarlamaanka 122 waxay u codeeyeen diinta islaamka ma rabno kuma dhaqmayna yiraahdeen 122 u codeys laban wadaad oo nin Sheekh Ismaaciil al-Burcaawi la oran jiray ka tirsanaa u codeeyay in sharcigana u noqono ku dhaqanno marka mar walbo la horgeeyo qadiyadaas baarlamaan laanno nimanka la horgeeyay niman diin lagu soo doortay ma niman aqoon diineed lama waa niman ayaguba labisan xaqi Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharci dajinta ah marka wax faa'iido ah keeni mayso wixii ashala ku khasaaray inaan soo celin Cabdi Casiis faa'iido kuma jirtee marka rajo weyn oo ka qabta ma jirto Soomaaliya insha Allah ta'ala in muddo gaaban gudahood diinta islaamka lagu maamulo rajo gaaban oo ka qaba ma jiro ilaa uu wadanka Soomaaliya uu ka midoobayo cadawga ku jirana uu ka baxayo muslimiinta xaqa diineed doonaya in lagu maamulo dalka Ilaahayna ay awood ka yeelanayaan sheekh halkaas aan baxno qaybtii mas'uuliyadda iyo inaad mas'uul noqotid waana ku mahadsantahay sida loogu furtay qalbigaaga waxaan doonayaa markaad quraanka aan akhrinayno aayado waxaa jirto xilliga la joogo inay ka hadlayaan u malaynayso marka dhowr aayadood ayaan soo qaadan doonaa marka bal noo sheeg kooxda ama xisbiga ama cidda ay isleedahay way ku habboon tahay ama talada aad ka jeedinayso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياد leedahay واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا وآيات لفظ عامة ayaa ku jira ummadii la faray ee muslimiinta ahayd bay aayadu ka hadlaysa dadka maanta mudanna waa anaga Soomaalidan isleeyahay laano qabyaalad baana baabiisay gobolaysi hadda nahaya siyaasad baana qaybisay aragti diineed oo fara badan baana qaybisay si walba waynu u baabaanay dadka muslimiinta Soomaaliyeed hadda ku nool wadanka inta ka maqan taqriiban waxaan isleeyahay way isleeyihiin ama waxa ka badan inta maqan marka ummadda ugu baahi badan inay midowdo oo xariga Ilaahay si dhab u qabsadaan waa muhiim ayadu waxay ka hadashay in la qabsado xariga Ilaahay ma aysan dhihin midooba inaan midowna macna badan kuma jiro laakiin inaan ku midowno diinka Ilaahay laano haddaynu ku midowno qowmiyad ama gobolaysi ama dano ama ganacsi iyo siyaasad bari baynu kala tagaynaa laakiin hadday noqoto inaan xariga Ilaahay ku midowno waxa adag inaynu kala tagno marka ayadu waxay ka hadashay in la midoobo laguna midoobo xariga Ilaahay kitaabka Ilaahay aayadda labaad waxay tahay yaad leedahay ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك aayadu siyaa khaas ay ku timid laakiin macno guud bay xambaarsan tahay waxay aayadu ka hadlaysaa in adduunyadan laga shaqaysto aakharana loo sahay qaato khulaasadoodu waa intaa
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك صدح qodob way inaad aakharo ka dhigto gacanta midig ood u shaqaysato awooddaada badankeedna aad geliso fikir iyo maal iyo nafba adduunkadana aadan hilmaamin oo noqonin mutabattil ah oo inqidaahi ah oo adduunyada ka go'an wamaca daalika haddana ummadda wax tara oo ummadda wax u gudbaya saddexdaa qodob bay aayaddu ka hadlaysaa idan waxaan isleeyahay ruux walboo muslim ah hawl ku habboonoo laga doonayo wey in aakhiradiisii uu awoodda u badan ku bixiyo adduunkiisana ka shaqaysto nin muxsin ummadda wax tarana oo naftiisa wax tara oo muslimiinta wax tara oo wax dheefiya oo u noqda shajara muthmira ah aayadda xigta waxay leedahay ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الاستحسان waa aayad adag oo ay in badan u deliishadaan dadka ka soo horjeeda salafiyiinta ama wadaadaha laisku turtuuro aayaddu aayaddu waxay ka hadlaysaa si guud marka la fiiriyo dadka afka wax wanaagsan ka sheeganaya ilaahina qalbigooda wax xun iyo balaayo uu ka ogyahay ee nifaaq iyo diin la'aan marka waxay un siyaaq guuda ahaa in afkaadii uurkaadu aysan iskhilaafsanayn diinka ilaahay xaqan aadan ka hor imaninoo nin dood badan aadan noqonin xaqa dafciya bayaddu ka hadlaysaa waxay addu inoo tilmaamaysaa in afkeennu iyo uurkeennu iswaafaqaa wixii xaqan aan u hoggaansanno aynan ka murmin oonan ka dagaalamin waana hawshaan isleeyahay nin walbaa u baahan ama siyaasiga ha noqdo ama oday dhaqmeed ha noqdo ama nin culumaa ha noqdo ama taalib cilmi ha noqdo nin walba waxaa laga doonayaa in afkiisu iyo uurkiisu iswaafaqaan xaqana uusan dafcinna uu aqbalo qaato doodana la yareey aayadda xigta ayaa ku leedahay ومن الناس من يشتري لهو الحديث liyudilla can sabiili illah يضل عن aayaddu waxay ka hadlaysaa markeeda koowaad dad qureysheed ama carbeed ama diin ka soo horjeeday oo isku dayay inay dacwadii nabiga ka hor yimaadaan kagana hortagaan waxyaaba dadka masraxiyaad ama hees ama fan iyo mashquulin noocaasa macnaha guudna waxaa soo gelahaya ruux walboo arrin adduunya la yimid daahirkeeduna ay quruxsan tahay xaggana ummadda inuu ku dhumiyo ama diinkii xaqa uu kaga wiciya doonayay waxyaabahan adduunka ka socda boqolkiiba 80 baa sida ah miidiyihii idaacadihii warbaahintii weeb walba wax lagu qoro maanta waxaa u badan ama idaacad walba waxaa u badan ummaddii in xaqeedii diinteedii dhaqankeeda laga baabiyo hadda waxay og tahay idaacadaha aniga waxaa ku badan hees baa ka socota dhaantaa ka socota in diin laga sheegaa wax walba ummadda dhaqankeedii iyo diinteedii duulimaad ku ah ayaa ka socda wax yar baa laga yaabaa in dhaqankeedii iyo diinteedii laga soo geliyay marka ruuxu inuu u qasto ummadda uu diinka ka dhumeeyay inuusan u qastinba waa isku mid mar haddii falkaaba uu ka dhan yahay diinta ummaddana uu dhimanay aayadda kale oo aan doonayna inaa macnaha ka tiraahdo waxa weeyaan yaa leedahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka bismillah aayadu waxaad xulatay hal door la odhan karo marka qur-aanka macaanidiisa la fiiriyo marka aayaddu waxay ka hadlaysaa wa anfiquu fii sabiili illah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waxaa badan culummadu ama dalabatulcilmigu ama manaabirta marka laga hadlahayo in loo soo qaato aayadda nin walboo naftiisa hawira ama meel ku tuura ama muxuu ahay wax dhig u keeni kara sameeye lagu xidhi karo lagu dili karo lagu canaanan karo isqarxiska waxaasoo dhan baa loo soo deliishadaa inaad halganto oo dagaalanto xilli aad loo arkay inaysan munaasab ahayn in aad ruux macsiyo samaynaya aad si adag oola hasho lagu dilo in wax dowladdu ay diidantahay intaad samayso marka lagu xidho waxaasoo dhan baa loo soo deliishadaa laakiin xadiidka abi ayuub ee saxiixa ah fi sunan ku yimid wuxuu caddeeyay aayaddu inay ku soo degtay macno khaas oo ah markii ilaahay subxaana wata nabiga u gargaaray maka la furtay nabigu inuu tamu ku duula bilaabay uu nabigu ka gudbay jasiiratul carab xuduuddeedu u dhaqaaqay iyo ansaar waxay is yidhaahdeen in maadaama nabigu u gargaarteen haddana uu awood yeesho oo ballaaqay beerihiinni iyo hantidiinni bay lahday intaad halkan ku maqnaydee maad dib u hagaajisataan nabigu ciidan buu hadda helayaa iyo taageerayaal iyo ciidan muslimiin oo fara badan ilaahay baa tii ka hadlay marka in lagu bixin waayo hantida iyo wixii rabbi ku siiye jidka ilahay lagu bixin waa weeye tahalukada iyo halaagsanku ee ma aha inaad halganto halaagsan maaha khayr alla ku siiya aayadahaasoo dhan waxaa rabay waaqicayna oo ay ka hadlayaan marka insha allahu tacaala kolley sidaa u fasirtay annagana ujeed xun kama lahayn laakiin ummadda inaa u faa'iidayso unbaa allah ybarik fiik qaybtii ugu dambeysay barnaamijka ayaan soo gaarnay sidaa la socotay qofna ilaahay basar ayuu arag ayuu siiyaa qofna aragti ayuu siiyaa marka waxaan doonaynaa in barnaamijkan aan kala baxno waxyaabo aad iyo aad faa'iido u ah ummaddana daawanaysana ay
ka faa'iidaan. Marka Soomaaliya 30 sano hadda kadib ama 40 sano hadda kadib, ma sidan unbaa ku sii jiraynaa oo ah dhibaatada iyo AMISOM iyo in annaga mar walbaba aan macnaha diintii laga sii fogaado ma dhibkana sii jiraya sababtoo hadda 20 sanay soo socotay. Maxaa aragtaa 40 sano ama 50 sano hadda kadib Soomaaliya? cabdicasiis waa sidaad sheegtay soomaalidu waxay tahay raggu waa laba qaybood oo suul eeg iyo soof eeg min suulkiisa iyo meeshuu taagan yahay raadkiisa wax ka badan aan araghiyo meel fooftaan xool u foofaan nin wax ka arka nin walba ilaahay baa aragtidaa qaybiya laakiin aniga waxaan isleeyahay soomaaliya xal diineedna uma soo dhowo mid siyaasadeedna uma soo dhowo inta ay hadda sidan u qaybsan yihiin ee loo qaybinayo gobolaha labada bele dariskana ay awood leeyihiin Soomaaliya xal siyaasi ah uma soo dhowo saan isleeyahay xal diineedna uma soo dhowo inta xalka diineed waday waxaa loo arkaa inay yihiin in aafaysan oo argixisa ah oo balaayo ah dadku u weynaa 8 jirka hadda waa xidhan yahay wadagta Sheekh Xasan Daahir Aweys waa ceeb weeye dhaqanka Soomaaliyeed iyo curfigeenna iyo diin in waayeela oo sonkor qaba oo dhikar qaba oo 8 jir ah inuu hadda xidhnaa wax macnaha soo ku xidhnay yani waa garanaysa meeshaynu gaarnay marka xal diineedna ma soo dhowo intii wadayba waxaa laga dhigay nimanta kooran oo meel walba bad iyo bari lagu dilahayo koodii meel laga helan xataa looma ergeyn karo xalka siyaasigana hadii labadan dal intay awood leeyihiin in dariska wadda Soomaaliya la innagana saa nolol sii qayminayo xalku ma soo dhowo waxaan isleeyahay 30 sanaad sheegtay 50 sano dambe dhibkan waa lagu sii jiray hataan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo noqonin taasi waa waxaan noo muuqda qiyaasta iyada ah awood rabbaani ah iyo hadduu yimaado caada khaariqa ay timaado min Allah waa gooni oona ku xisaabtamin laakiin waaqac waxa yaala xalku aad buu fogyaa marka isla Soomaaliya anagu ku jirna kooxahan islaamiyiinta sida Al-Shabaab Xisbul Islaam ma isleedahay ali sida macnaha kooxahan islaamiyiinta inay iska dhaafaan dhibka qaraxa iyo dhibaatada intay iska daayaan ummadda inay soo dhex galaan oo ay ahzaab samaystaan oo ay ka bedelaan waaqaca hadda dalku ku jiro si nabadgelyo ah oo aanu dhib iyo qarax ku jirin ma aragtaa 10 sano ama 20 sano soo socdo cabdicasiis waxay la tahay waxaa la umulka ilowsho dhow baa la yidhahdaa dhib shalay ku gaadhinka aan xusuusanin yay ugu mahmaan Soomaalida hawsha iyada ah 1964 ilaa 66 ilaa 69 Soomaaliya waxaa ka jiray xisbillahi al-acba as-Soomaali oo baarlamaanka Soomaaliya ku jiray oo tartami jiray una tartami jiray tatbiiqa shariica al-islaamiya min khilaal al-barlamaanaat wa siyaasa wuxuu soo kordhiyay ma jiro 60 ilaa aminkan 50 sano inuu ka joogna taqriiba wax ku dhow marka waad ogtahay Masar oo kale akhwaanku waxay siyaasad ku soo jireen 80 sano waxay keeneen hadda damaar iyo burbur meesha ku dambeeyay hadda waxay maraysaa gabadh akhwaana ninka qabo ha furo ninkii akhwaana gabadh soo doona waa in loo diiyay gabadhu qabana ha laga furo dhigoodu waa banaaya fil xilli wal xaram lagu dilay maraysa inkastoo macnaha fatwadaas qofkii sheego ka laabtay adigu aday irhaa wuxuu u fasaray wuxuu dhacday argagixiso albihim ayadu hadda waxa lagu xukumeeyay jamaaca irhaabiye warka wada hisaabeelata Algeria isku dayay inaan si xal siyaasi ah wadan ku soo galo islaamkana saa wax lagu taro meesha ugu dambeysay Jazaa'ir waa la socotaa reer Falastiin Hamas si xor ah nasiha loo durtay hatta gaalada dhan bay kareen meesha ku dambeeyay sida loo galay sax waa la socotaa حزب الإسلام ولا وذات ولا نين مسلم الصومالي كلمة تلنا إن طريقة السياسة والبرلمانات وحل كرة ديو كلمة تلنا حلكو وإن دين كان الله هيليو وإله كتاب بيسي الله جرجارو وعن طريقة مجاهدين تأكو تاجين بقى إلى صحن أيوة وحن أقدر دار منا إن جعنتنا دبعيان مسلمين تنقلنا حريستان دعنا وهذا المشروع الديني ذي وضع الشباب كودام مرحبا ها دنكاس إيو فلسطين وصو هذا القاعدة مركان كهذا shalay aa u dambeysay Baytul Maqdis ama Qudus waxa lagu masaajidka waxa lagu kortaagay calan waqto Yuhuudda meesha maraysa dhibaatadan waa aragtaa maxaa marka is leedahay 20 sano ama 30 sano soo socdo ma Oslo iyo qoftiga soo laabtay iyo waxaas laga hadlayaa mise Baytul Maqdis gacanta muslimiinta ku soo laabanaya ariga qiyaastayda Cabdicasiis way adag tahay in Bayt al-Maqdis hadda sida socota iyo wada hadalkan iyo xuluultan ay wadaan Falastiiniyiintu
iyo dhex maraya ee John Kerry uu odayga ka yahay inuu wax khayra keenayo ama Quds ku soo laabanayso ma aaminsani. Quds waxay ku soo laabanaysaa awood baa lagu qaatay in awood lagu soo celiyo. Caalamka iyo reer galbeedku ma fahmaan waxaan awood ka ahayn. muslimiintu intaasay gacmaha taagayeen, calamo cadcad wateen, baryootamayeen, waxaan damaar iyo burbur ka ahayn ma jiro. xaqaani awood milatari baa lagu qaatay, waxaana lagu soo celin karaa awood milatari. Saan waa kule arag. saala socoto gabyaa waxaa jira caraba oo dhahayo an ittajahta ila alislaami fi baladin tajidhu kadayri maqsuusan janaaxaahu. uu sii wada wuxuu leeyahay kam sarafatna yadun kunna nusarifuha wabata yamlikuna shacban malaknaahu. yacnaa dad aan maamuli jirna islaamka ee aatina maasulo. marka ma isleedahay islaamka 20 sano 50 sano 100 sano soo socota islaamka wuxuu noqonaa qof dad wax milkiya ma noqon karaan mise dhibkan unbaa lagu sii jiraya iyo in islaamka uu noqdo qof macnaha dad adareysa oo mar walba la liiso. Sheekh Cabdicasiis horta si guud marka loo qiimeeyo dhibku waa jiri doonaa. xilli uu gaaraba 100 sano iyo 50 dhibku kii jira wey. waa xadiidkii Anas baa cadeeyey adduunyadu waxay u sii guuraysaa ilaa aswa wa ashad, sharkuna uu sii kordhaa ma yaraado. marar baa laga yaabaa ilaahay nasr uu keeno khilaafa islaamiya raashida iyo meelo khaas ah laga helo. laakiin in walba u sii dhawaana qiyaamu saaca iyo aakhiro loo sii dhawaado dhibku waa sii kordhaya, khayrkuna waa sii yaraanaya gaaliba. laakiin markaynu u soo laabanno waxaan isleeyahay meelo badan khayr baa ka soo kordhi doona. muslimiintu hadda waxay dareemeen culayska iyo dulmiga iyo xadgudubka ay ku hayaan reer galbeedka. in badan baa baraarugaysa. in shay wax ka maqnaa baa wax toosaya. waxaa jira xuquuq iyo mujaahidiin caalam ka taagan oo xaqooda talbahaya. waxaa jira kuwa doonaya xaqa islaamka inay ku raadiyaan dariiqo siyaasa wal baarlamaanaad. marka birmad baa jira. mar haddii la birmado baadina la doono waxaa badan baadidii in la soo helo. nin ku soo hela awood iyo nin raad qaada iyo nin siyaasad iyo xeel ku keenaba. waxaan isleeyahay marka qolyihii siyaasadda wax ku raadin jiray iyo baarlamaanaadku xidigooda wuu sii dhacaya. waxaana soo baxaya qolyaha tayarata salafiyada jihaadiya ee awood wax ku raadinaya. 20 sano soo socota sidan si dhaanta waa la helayaa. waxaana dhici karta 30 sano kadib in la helo dowlad islaami ah oo awood badan oo meel ka istaagta caalamka ka istaagta. sheekh waxyar ka hor gabay ayaan ku akhriyo xaaraan ya gabay maya waa bannaan yahay, kiisa bannaanna waa bannaan yahay, inuu waajibaa laga yaabaa. kiisa xunna waa fin yahay. gabaygu waa hadal laakiin waa xaaraan. gabaygu waa hadalkoo kale. nabigu wuxuu yidhi faxasanu wa xasanu wa qabiixu wa qabiix. gabaygu iyo sugaanta iyo heesta iyo goobaabada iyo buraanburka iyo waxaasoo dhan kiisi wanaagsan ee wanaag lagu taageerayo ama ummad khayrkeed lagu sheegayo ama lagu waaninayo shay bannaan wey. kiisa xunna waa xun yahay. dhaantadu waxaan ku diidanaa maaha inay hees tahay ama gabay tahay, waa gabdho iyo rag ajaanib ah wada tumayo. heesahana sidoo kale waa nafs alqadiya. heestuna waa xaaraan wey hadday xaaraan u adeegayso. hadday xaaraan u adeegayso oo midda jeedan ay qaawan tahay oo dhaqan xumaan lagaga sheekayn waa xaaraan. haddii ummad wanaag loogu sheego ruuxa sheegana uu asturan yahay ma leeyahayna waa bannaan yahay. ugu dambeyntii sheekh maxaad shacabka ku daawanaya ee Soomaalida ah iyo islaamka aad ugu baaqaysaa intaan barnaamijka soo darbiya? Cabdicasiis waa su'aasha ugu muhiimsaneed baan isleeyahay. daqiiqadaha yarka waxaan kaga faa'iidaysanaya ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan u dardaarmayaa inay ku dadaalaan midnimada iyo wadajirka, kana soo horjeedsadaan tafaraaruqa iyo kala tagga. qodobka labaad waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto dal iyo dibadba waa inay ka hor timaado si adag ku diido mashruuca socday hadda gobolaysiga ah. waa inay si adag uga hor timaado mashruuca ku salaysan qabyaaladda iyo faaraqabiilka. waa in ay diinkoodii wax taraan kuna dhaqmaan ahal iyo walaalo weeye meel walba joogaanna isbaahi qaataan oo ismudana ay muxuu ahaa iska warqabaan diinka islaamkana ay u adeegaan ayaguna dhibaatooyinka qabyaalada ku salaysan diinfimada ku salaysan u adeega danaha reer galbeedna ay ka fogaadaan. sheekh mukulibe waraysigu aad baan ugu faraxsanahay in la soo celiyo waan jeclaan lahaa. insha Allah aad u mahadsan tahay mudanayaal iyo marwooyin. intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa waraysiga qiimaha badnaa ee aanu la yeelanay Sheekh Xasan Xuseen Aadan Abu Salmaan. ilaahay ajri iyo xasanada la ka siiyo. waxaan u rajeynayaa insha Allah mustaqbal wanaagsan. adinkana waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad noo daawateen. tan intaynu barnaamij kan la mid dib ugu kulmi doono waa Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.